nin ayaa markasta waxa uu ku riyoon jiray in uu guursado gabar aad u qurux badan, laakiin marka uu guursaday uu wejiga ka feeday wuxuu arkay in ay madowdahay, aysan qurux badnayn. habeenkii arooska ayuu ka tagay markuu muddo ka maqnaa oo xaaskiisa ay dareentay xaggiisa ayay soo aaday waxayna ku tiri yaa maalik lacalla alkhayra yakmilu fi shar. kadib uu soo raacay arooskiisa ayuu dhammaystay markasta, laakiin waxaa qalbigiisa ku tagnaa in uusan ku qanacsanayn muuqaalkeeda. mar labaad ayuu ka haajiray ama ka tagay, laakiin markaana wuxuu ka tagay 20 sano, mana ogeyn in xaaskiisa ay uur u leedahay. 20 sano kadib wuxuu ku soo laabtay magaaladii. intuu gurigiisa raadinayay wuxuu doonay in uu dugto. masjid ayuu galay, wuxuu maqlay imaam bixinaya cashir. wuu fariistay wuuna dhageystay, wuu la yaabay wuuna u tagay, wuxuuna weydiiyey magaciisa. wuxuuna ugu jawaabay imaamu Anas. yaa wiilkiisa tahay ayuu ku yiri. wuxuu ugu jawaabay waxa ay dhalay nin magaaladan ka safray 20 sano ka hor oo magaciisa la dhihi jiray Maalik. wuxuu ku yiri waxaan ku raacayaa gurigaaga, laakiin waxaan istaagayaa albaabka hortiisa. hooyadaana waxaad ku tiraahdaa nin albaabka hortiisa taagan wuxuu kugu leeyahay lacalla alkhayra yakmilu fi shar. markuu u tagay oo u sheegay waxay ku tiri dhaqso ka fur albaabka, waa aabbahaa. muddo badan kadib ayuu ma aysan ku dhihin wuu naga tagay, ma aysan u sheegin maqnaanshihiisa in uu xumaan kaga maqnaa. wiilkiisu wuxuu ahaa Anas ibnu Maalik oo adeegihii rasuulkeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. maxay tahay waxa aan ka baranayno Anas bin Maalik hooyadii? lacalla alkhayra yakmilu fi shar, oo micnaheedu tahay waxaa laga yaabaa in khayrku dhammeeyo ama tirtiro sharta. amar walba kugu dhaca ama wax walba oo ku asiiba waxaa laga yaabaa in Ilaah uu kula doonayo khayr.